xuska sanad gurada 20aad ee 18 May ayaa maanta sidii abid ugu ballaaneed looga xusay magaalada Burco iyo guud ahaanba deegaamada hoos yimaada gobolka Togdheer. xuska 18 May ee saaka ayaa ahaa mid ay si weyn uga qayb qaateen ciidamada booliska, militariga, asluubta, baanboyda, laamaha dawladda ee heer gobol, ardayda dugsiyada, jaamacadaha kala duwan iyo qaybaha kala duwan ee bulshooyinka gobolka Togdheer, waxayna dhammaan dadka banaanbaxan ay sameynayeen ay ku gaashaanayeen astaamaha saddexda midab ee uu ka kooban yahay calanka Somaliland iyo sawirada afartii madaxweyne ee soo maray Somaliland, waxaana dadkani wajiyadooda ka muuqatay shucuur iyo dareen ay ku xusayaan xuska maalintani. banaanbaxa xuska 18 May ee saaka ka dhacay magaalada madaxda gobolka Togdheer Burco ayaa isagoo ahaa mid socod u badnaa oo ka soo bilaabmay xarunta maamulka ee gobolka Togdheer kaasi oo lagu yimi fagaaraha khayriyada ee magaalada Burco, waxaana qaybaha kala duwan ee ciidamadu ay maanta halkaasi ku soo bandhigeen fantasiyo iyo dhoolatusyo. dadka maanta banaanbaxani sida weyn uga dhex muuqday ayaa waxaa ka mid ah jaaliyada beesha jareerweynta, jaaliyada Itoobiya iyo macallimiinta masaarida ee ku sugan magaalada Burco, kuwaas oo ku biiriyay dareenkooda shacbiga Somaliland kalena qayb qaadanayay xuska maalintani qaaliga ee 18 May. furitaanka xafladii ay isugu yimaadeen dhammaan dadkii banaanbaxayay ayaa halkaasi waxaa kala hadlay madaxay ka mid ahaayeen wasiirka xanaanada xoolaha, horumarinta iyo deegaanka reemiga Somaliland Dr. Cabdi Awdaahir Cali, wasiirka macdanta tamarta iyo biyaha Somaliland Engineer Xuseen Cali Ducaale, gudoomiyaha gobolka Togdheer Yaasiin Maxamed Cabdi, duqa degmada Burco Master Maxamuud Axmed Xasan Dhagalaab, Suldaan Cismaan Suldaan Cali Madar, Mujaahid Maxamed Kaahin iyo dadweyne kale oo badan. dhammaantoodna waxay madaxdani ka sinaayeen jiritaanka iyo qaranimada Somaliland iyo sida ay xilligani Somaliland ugu baahan tahay ictiraaf buuxa. markii ay soo gabagabowday xafladani ay madaxda kala duwan bulshada gobolka Togdheer kala hadleen ayaa waxa suuqyada magaalada Burco socod ku maray hirar kamid ah dadweynaha magaalada Burco oo ku dhawaaqayay erayo ay kamid ahaayeen Somaliland way tagto way tis qaaday, waxaana maanta ilaa xalay si weyn loo adkeeyay ammaanka guud ay ka wada qayb qaateen shicib iyo dawladba. haddaba amaraan microphone kala dhex qaadnay dadweynaha magaalada Burco ayaa dareenkoodu ahaa sida tan. maalintii aynu la soo noqonay xornimadeennii 1991kii waxaynu marka hore ilaahay u baryaynaa in alla intii ku soo shiiday xornimadeenna ee ku dhimata ku baxday rag iyo dumarba ilaahay naxariista ka waraabiyo, in ilaahay innagana inooga daba naxariisto. madaxweynayaasheenii uu ugu dambeeyay maanta Axmed Maxamuud Maxamed Silaanyo oo maanta qabtay xaflad aad iyo aad u qiimo badan oo runtii muujiyay madaxtinimadiisii wuxuu soo halgamayay, iyo madaxweynayaashii ka horreeyay Cabdiraxmaan Axmed Cali oo ahaa madaxweynihii ugu horreeyay ee Somaliland, Maxamed Xaaji Ibraan Cigaal, Daahir Yaala Kaahin. intaba waxaanu leenahay jisaayigiina waa qaateen, wixii dhintayna Allah u naxariisto, waxa nool la dambigooda ha dhaafo. ku sugan gobolada Somaliland lix gobol iyo degmooyinkoodaba ilaahay maanta ugu gaarsiiyay midnimadii iyo sharafkii iyo goboladeeda la soo noqonay 1991 May ilaa maanta 20 guurada lagu dabaaldegayno gobolkii Togdheer ee calanka lagu saaray. ما شاء الله الحمد لله ما حد عسكري أنا أحمد محمد خلق فرحنا مانتا قرني مدة سمالت الناس نقطين سمالنا قرني مدة إذا أنا فرحنا هاي رياضة فرحنا يسوي جورة لبعضنا أمبلي على الله أمبلي xuska 20 guurada 18 May ayaa isagoo ahaa mid ka soo unkumay gundhigii iyo goonisitaagii Jamhuuriyadda Somaliland sanadii 1991kii xilligaasi oo madaxweyne lagu doortay magaaladani Burco. Allah ha u naxariistay Cabdiraxmaan Axmed Cali Cabdiraxmaan Tuur, iyadoo haatan uu Somaliland ka yahay madaxweynaha afraad ee soo maray mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo. Maxamed Awad Maxamed, shabakada caalamiga ee Wadweyne News.